بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد halkan waxaan ku hambalyeeynaa ciidanka xayta la yimi ee lagu soo wareejinayo aad iyo aad baa u mahadsantiin waxa garateen dulmigii iyo waxaan ku ducufkii ay ka soo dhaqaadeen waxaana u soo birteen dulmidiidinatiin ciidanka hore ee shayta yimi maalin walba waxa ay soo yimaatay inta in leeg bay timaadaa waxaan leeyahay inta hadhana fadhiidima yaalo war waartaan cashuur bixiyaal baa noqoteen dub u noqon maysaa maanta laga bilaabo wixii maxaan kuuri marka laga bilaabo waxa noqonaysaan rag waxaan kuuri shilinkooda ilaashada gobolada maanta wax cashuur ay bixin karaan ma jiraan maanta laga bilaabo waayo dalkiisa waa laga tashaday waana ka tashadana raggaas saraakiisha maanta lagu soo dhaweeyey waa rag aad iyo aad ugu mahadnaqayo si fiican u soo howlgalay hubkoodii waxoodii sitaa kuwa soo socda waxaan leeyahay soo dhawaada ciidanku waa ka sida biyaha isaga soo daba dhacaya sida roobka waa ka soo daadanaya ee meel walba ka soo baxaya ee ciidankii qaranka horaantiyoodii waa kuwa xalay loo yimi marka sidaas oo kale aan rabnaa inay dadkan la maran habaabiye ciidamada la maran habaabiye ee dhiigga faraal loo geliyo maatida iyo masaajidada layli duqeeya inay iskaga soo wada baxaan sida kuwaniba uga soo baxeen ayaan rabnaa ciddii ilaahay garanaysaaba inay ku soo biirto halgankan xaqa ah ee rajiimka iyo shayaadiinta lagula dagaalamayo markaa saa awgeed dadku ha iska qabtaan rajiimka ku raagay meesha ee gafanoobay ee dhiigga dadka saacbay faambaayarta noqday ka u shaqeeya ee ay mushaar siiyaan marka dambe si faambaayartii buu isla noqonaya ila waa qof xaaraan cunaya marka war xaaraantana cunasaan ha u hamuumina xukuumad nijaasa oo dadka baadhatay oo dalka iyo dadkii diintaba baadhatay oo imikana macalqoomanluud keentay ayaa moodaysaan dawlad maaha waa niman shufta oo dadkii helay markaa laga dagaalamo waa la ogaaday waa la gegabgooyey dadku dad maaha dee in badan baa la dul qaadanayay layslahaa bal waxa inuu ilaahay kaxeeyo bal inay iska tagaan bal inay dhergaan ma dhergayaan ma laqanyoonayaan mana qajilayaan dadkan cashuuraha dhiibow cashuur ha bixinina waar cashuurtiinnan haysta naar baa ku gelaysaan lacagtaa muuse ku caawinaysaan waxaan ku yidhi idinka oo aagoomaa siiya ayaa dee idiin dhaanta saaka halkan waxaanu ku wareejinaynaa ciidankii xalayta yimi waxaanu ku wareejinaynaa taliyaagga haddii ilaahay ka dhigo taasi waa midha kalaan ku celinaya waxaa weeye maalin walba rag wixii ay sameeyeen ilowsan oo doonaya dadka inay qalbiga iyo niyadda ka xadaan oo been dadka iyo barobaganda ku shubaan wallaahi loo dul qaadan maayo halkan ku soo dhoweynayno mas-uuliyiintoodii sida xildhibaanku inoo sheegay innagu se laakiin siyaasiyiin manihina waxaanu ciidan baanu nahay waxa weye rajiimkaasaan annagu la dagaalamaynaa annaga xusbina u dagaalami mayno ururna u dagaalami mayno cirrana u dagaalami mayno faysalna u dagaalami mayno annagu waxaanu u dagaalamaynaa rajiimkaasana waddanka ka qabanayna baabi'iyey ee somalilaantii isku xidhnayd ee gees ilaa gees isku xidhnayd kala kaxeeyey ee carruurta yaryar iyo ubadka meel walba ku laayey ee magaalooyin dhan oo caasimadaa burburiyey oo somalilan kala wada jaray kaasaannu la dagaalamaynaa waxaan ku furaarta ku bilaabanaya hadalkayga tix yaro kooban 30 sanno dulmiga gaadhay iyo beenta darajaysan khudbadaha sidii duul muslina daahirka u muuqda dibnaha qowlka laga sheegayo iyo damaca urkee fog dillaannimadu way soo gudhay laysku soo dagay dufkii qaayinkiiya way gooleydhi didsigu darafyada cadhooday ee baryahan darantay yeedhoodu markii daawadii lagu ballamay dulun ku xeegaystay dugsigii rajadu ay lahayd quus ka doorbideen gobollada intii durugsanayd daaqsin loo arag mar cashuure laga doonayo ayuunbaa dawlad loo yahay jidhku dawga sheekh kama gudbo dilana waa tiix daamiya hargaysa ayay badhkood dayro qoranyihin dulrogoy ka muuqdaan sidii caymad soo diday adigoo dadqaadkii marsaday iyo horarka dooxaya dhibbanahan dulliga qaayibay ee maanku daxalaystay ee dhagarqabi duudsi baday weli difaacaya ee dayrcadkiisii ka jecel diiqa laga siiyo ee dalawadiisii nin kale ugu ducaynaya dad noolnool waxaa sidan u galay yaiga degi weydey
xumaanta iyo xaaraantu ka badata caqliga ka xumaada xitaa waxay ka dhigeen halgankii eesanan bay suurad xumeeyeen cisho dhowata waxaad maqlaysaa cabdirasaaq khaliif qaranka uu dhaartay qaranku u dhaarsanaa wiina khiyaameela boojiiluha war miyaydaan qarankii soomaaliya ee weliba koorsooyinkii waxbarashada iyo darajooyinkiisii idinkoo u dhaarsan miyaydaan etoobiya gelin miyaydaan haliyeye ku ahayn cabdirasaaq hadduu taa haliyey ku noqon waayo dee wixii noo dhan xaaraan bay ahayn dadka ku dhaha u sheega waxba lala kala gaban maayo waxaan filayaa waajibkii waa la kala qaatay ciidamadu howlgalkii ay lahaayeen ayay gelayaan disibliinkooda iyo nidaamkoodii ayay qabanayaan halgankuna wakhti dheer buu bilaabo ragga halga taagan qaar baan dhalanin haddii maadaama aan la gaarin wixii loo halgamayana halganku wuu soconayaa maantuu soconayaa berri buu soconayaa dalkana haddii la warayeelan waayey muusow waa la kala yeelanayaa dalka haddaynu warayeelan weynay waynu kala yeelanaynaa nin weliba halkuu leeyay buu maamulayaa dhici mayso oo dib u dhici mayso inaad tiraa anaa wax walba ah wax walba adigu noqon maysid halkan waxa aanu imika isugu nimi oo aanu ku wareejinaynaa oo aanu xafladoodii haynaa ciidankii calayta yimi dulmidiidka ahaa ee waxa weeyaan u soo diyaargaroobay halganka waxaanaanu ku wareejinaynaa taliyahaaga waa taasu waa midda labaad waxa weeyaan waxaynu ka halgamaynaa oo aynu doonaynaa oo aynu u soconnaa rajiimkaa xun ee waxa weeyaan sida xun u abuuray ee ciilqabayaasha ah sidii aynu dalka uga tirtiri lahayn aynu uga qaban lahayn ummadda somalilan ee aynu uga safayn lahayn oo keliya baynu u halgamaynaa oonu u diyaargaroobaynaa waxa weeyaan aagagga ciidamadii way kala maqan yihiin ciidamadii kalena difaacay ku jiraan sahankay ku jiraan tababarkay ku jiraan waxa weeyaan ciidankanuna waa ciidankii xalayta soo galay ee isaguna u soo diyaargaroobay halganka waxa weeyaan dulmiga laascaanood ka dhacaya ee boorama ka dhacaya ee ceergaabo ka dhacaya ee berbere ka dhacaya ee burco ka dhacaya ee hargeysa ka dhacaya kaasaa laga halgamayaa oo loo wada diyaar yahay oo somalilan oo dhammu diyaar tahay